وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه وخليله المبعوث رحمة للعالمين بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صنائع المعروف تقيء ميتة السوء وصدقة السر تطفئ غضب الرب وصلة الرحم تزيد في العمر أو كما قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله كلغن كهدلايا كلا هدلايو انتوبا waxaan u baahanahay ma aragtaan inaka ilaahay u baahan ilaahay inaka u baahan diinta islaamkana inaka u baahan kalluunka noloshiisa ilaahay wuxuu dhaxgeliyay waa biyaha dhaxdooda weeyaan hadduu biyaha ka dhaxbaxo uu dhimanayaa bani aadamkana cizigooga sharaftooda aakhiradooda adduunyadooda meeshay ku hagaagaysa ilaahay waxuu ka yeelay waa diin hadday diinta islaamka dadku ay ka dhaxbaxaanna way dhimanayaan marka kulligan innaka u baahan ilaahay innaka u baahan salaadan tukanay innaka u baahan diinta inaan maqalo oon isku baraarujino oon ka wada hadalno innaka u baahan rasuulkeeni udgoona calayhi salaatu wassalaam ibn mascuud radia allahu canhu ayuu ku yidhi qur-aanka dusheeda ku akhri waa nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam ayaa ardaydiisii ka mida ka dalbanaya qur-aanka inuu dushiisa ku akhriyo marka cabdillaahi bnu mascuud radia allahu canhu wuxuu yihi aqra' calayka wacalayka unzil yaa rasuul allah ma adaan dushaadan qur-aanka ku akhriyaa qur-aanku aduuba kugu soo degee waxau nabigeenu calayhi salaatu wasalaam uu ugu jawaabay inii uxibu an asmacahu min hayrii qur-aanka waxaan jecelahay inaan dadka kale ka dhegaystee dusheeda ku akhri buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam qur-aankuna waa wacdigii ilaahay waa bayaankii ilaahay tabaaraka wa tacaala uu khalqigiisa u jeediyey weeyaan haddii qur-aanka dushaada lagu akhriyo ama qur-aanka adigu aada akhrisanaysid ama meel ilaahay wacdigiisa lagu hayo aada maqasho waxaad ogaataa qur-aanku waa wacdiga ilaahay waa wacdi waa bayaan waa balaaq hada balaagu linnaas waliyundaruu bihi waliyaclamuu anama huwa ilaahu waaxidu waliyadakara ulu lalbaab hada bayaanu linnaas qur-aanku waa bayaan waa mawcido markaad qur-aanka akhrisanaysid ama qur-aanka dushaada lagu akhrinayo waxaad ogaataa bayaanka ilaahay uu khalqiga u jeediyey ayaa adiga dushaada lagu akhrinaya marka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxau ugu jawaabay ardaygiisii inii uxibu an asmacahu min hayrii waxaan jecelahay qur-aanka dadka kale inaan ka dhegaystoon ka maqlee dusheeda ku akhri buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam faqara'tu calayhi suurata annisaa suuraddaasaan dushiisa ku akhriyey buuhi nebiga dushiisa ilaa laga gaadho aayaddaas fakayfa idaa ji'naa min kulli ummatin bishahiidin waji'naa bika calaa haaulaa'i shahiida markaa halkaa uu maraayo
ayuu nebigu yihi xasbuka al'aan hadda qur-aanka halkii aan rabay aada gaadhsiisee intaasaa igu filana jooji buu nebigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam waxaa kugu filaatay intaas deedna saxaabigii wuxuu yihi nebiga ayaan xaggiisa daymooday waaba nebi maxamed sal allahu alayh wasalam oo labadiisaa indhood maaragtaan ilintu ay ka daadanayso inaku maanta qur-aankii waan maqlaynaa wacdigii waan maqlaynaa laakiin isbedelkii uu yaryahay aayad qur-aanoo nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam dushiisa lagu joojiyey ayaa nebi maxamed uu la ilmeeyey fakayfa ida ji'naa min kuli ummati bishahiidin xaalku sidee buu ahaan doonaa maalinka qiyaamaha markaan ummad walba aan keenno iyada iyo nebigeedii oo maragga ku furaya inuu diintii risaaladii uu gaadhsiiyey adigana markhaati aan kuu soo joojinno xaalo aada ku marag furi doonto ummadaada inaad diintii aada gaadhsiisay ana nebigeenu calayhi salaatu wasalaam qur-aanka ayuu tadabburayay qur-aanka ayuu ka fikirayay qur-aanka markuu akhrisanayana uu ooyi jiray oo caaisha radia allaahu canha waa tii tidhi salaata leylka markuu nebigu tukanayo rakacad keliyuu nebigu ku tukanaya suuratu lbaqara iyo ala cimraan iyo suuratu nisaa sarajooga dheeridiisa ayaa nebigu lugihiisu ay bararayeen deedna markaabay ku tiri lima tasnacu hada yaa rasuula allah yaa rasuulallah maxaa sida naftaada aada ugu kalifaysaa ilaahay adiga macsuum buu kaa dhigo dembigii horena waa kaa dhaafay kii dambena waa kaa ilaaliye markaabuu nebigu ugu jawaabo wuxuu ku yidhi afalaa uxibu an akuuna cabdan shakuura miyaanan jeclayn inaan ahaado aniguna addoon rabbigiisa ku shukrinayo ku mahadnaqaya aayad ka hadlaysa ilaahay tansiihdiisa hadduu marana nebigu ilaahay buu nasahayey aayad ka hadlaysa maaragtaane jannada hadduu dul marana jannadu ilaahay weydiisanayey aayad naarta ka hadlaysa hadduu nebigu iskortaagana naarta ayuu ilaahay ka magan galayey aayad ka hadlaysa ilaahay weynigiisa hadduu marana ilaahay buu nebigu weyneynaya calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid a salaadii subax ayaa la gaadhay sunnaha nebigu sal alla alay slam aqaladiisu kusoo tukani jiray inaku maanta salaada farad iyo sunnaba waxaan la imanay maaragtaan waa masaajidii aqaladeeni nasiib maxaan u yeelnay salaada sunnada salaad sunna ah uu qofku tukada buu nebigu xadiid ku yidhi salaadu qofku aqalkiisa ku tukanaya ayaa ugu fadli badan ilaa salaada faradka mooyaane salaada sunnayaasha sunnaha ugu fadli badan waa sunnahee waa sunnaha lagu tukado xaafadaha faradka mooyaane faraa-idana masaajida loogu talagalay sunnadana waxaa fadli badan sunnaha aqalka lagu tukanayo si aqalkii uu noqdaa aqal masaajidka cilaaqa la leh hadda aqalka salaada lagu dhex tukanayo oo qur-aanka lagu dhex akhrisanayo oo dadka aqalka jooga mar walba ilaahay ay aqalka ku dhex xasuusanayaan oo aakhirada ay aqalkooga ku dhex hadal haynayaan aqalkaasi wuxuu noqonayaa kalmasjid laakiin aqaladii haddii aanan ilaahay lagu dhex xusaynin salaadna aan lagu dhex tukanaynin diinna aan lagu baranaynin waxau noqonayaa aqalkaasi qabri banaanka dul yaaluu noqonayaa laa tajcaluu buyuutakum maqaabira aqaladiina qabuuraha ka dhigina buu nebigu yihi sal alla alay wasalam imaam atirmidi raxmat ullaahi calayhi wuxuu yihi aqalka haddaanan salaad lagu dhex tukanaynin salaadee laga wadaa marka haweenkuna farad iyo sunnaba inay aqalada ku tukadaan baa u fadli badan raggana faraa-idana inay masaajida ku gutaan sunnaha ay tukanayaanna sunnaha ugu fadli badan buu nebigu yihi waa kay aqalka dhexdiisa maaragtaan ay la tegayaan aqalka kusoo tukanayaan haddaan aqalka salaadba lagu dhex tukanaynin qur-aanna lagu dhex akhrisanaynin diinna aan lagu dhex baranaynin ilaahay tabaaraka wa tacaalana aan lagu dhex xasuusanaynin aqalkaasi wuxuu yihi imaamkaasi waa qabri banaanka dusheeda ka dhisan dadka ku dhex jirana waa dad dhintay la mid yihiin buu yihi meesha laga dhintaa laga noolaada ma aha jirkan dhimashadu runtu waa ta qalbiga weeyaan qalbiga marka nabigeenu calayhi salaatu wasalaam sunnaha wuxuu kusoo tukanaya aqaladiisa salaada faraa-idana wuxuu la iman jiray masaajidka deedna bilaal baa nebiga u tago ku yidhi yaa rasuul allah salaadii baa taaganoo jamci way ku sugayaan
markaabuu nebigu soo kacay calayhi salaatu wasalaam isagoo indhihiisa ay lilmadu ka daadanayso meeshuu nebigu ku sujuudayena ay ilintu ay qoysay. daedna markaabuu nebigu ku yidhi yaa bilaal xalay toole aayadahan qur'aanka ayaa dusheeda ku soo degay waylun liman qara'ahaa walam yatafakar buu nebigu yihi sal alla alay wasalam. aayadaha ninka akhriya ee aanan tadabburin ee aanan ka fikirin ee maskaxdiisa aanan ka shaqaysiinin uu hoogay buu nebigu yihi uuna khasaaray qofkaasi. awaakhir suuratu ala cimraan soo ma hayn awaakhir suuratu ala cimraan ina fii khalqi الsamaawaati wاlardi waاkhtilaafi اlleyli wالnahaar laaayaati liuli اlalbaab aladiina yatafakkaruuna fii khalqi الsamaawaati wاlard rabbana ma khalaqta hada baطila subxaanaka faqina cadaab الnar aladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqcuuda wclى junuubihim wayatafakkaruuna fii khalqi الsamaawaati wاlard rabbana ma khalaqta hada baطila subxaanaka faqina cadaab الnar. aayadahaasaa dusheeda kusoo degay buu nebigu xalay toole yidhi. aayaduhu maxay ka waramayaan markaas? ina fii khalqi الsamaawaati wاlardi waاkhtilaafi اlleyli wالnahaar, samaawaadka iyo araadiinta abuurkooda iyo habeenka iyo maalinta isgadaal maraya, isbedelaya, iskaxaynaya. maalintiibaa yaa joogtay, habeenkiibaa imanaya, maalintiibaa tegaysa, maalintiibaa imanaysa, habeenkiibaa tegaya. nolosha adduunka dhanba waa habeen iyo maalin isbedelaya. bal wax udhexeeya sheeg, wax saddexaad ma jiraan? waa habeen iyo maalin. hadday habeentaas saad u noolaan lahaydna nebi maxamed baa kuu jideeyey sal allahu alay wasalam. hadday maalin ay tahayna saad maalintaa u gudan lahayd, aad noloshaada u gudan lahayd, nebi maxamed baa kuu jideeyey. deedna samaawaadkan eeg, ilaahay dushaada uu dhigay, oo dhulka eeg, oo khalqiga samaawaadka lagu dhex abuuray fiiri. deedna ilaahay xasuuso. yadkuruuna allaha qiyaama waqucuuda, ilaahay bay xusayaan iyaka oo taagan, iyaka oo fadhiya, iyaka oo jiifa. oo maxay leeyihiin? rabbanaa maa khalaqta hada baطila, ilaahu cirkan iyo dhulkan iyo khalqigan dheeldheel umaad abuuran bay leeyihiin. subxaanaka ilaahu xumaan adaa ka hufan, nuqsaan adiga ayaa ka hufan, ee faqinaa cadaab الnaar, ilaahu cadaabka naarta naga dheeray oo naga badbaadi bay ku ducaysanayaan. 24 saacadood